بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طابت أوقاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم ويعلي قدركم. إلهنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى إنه كبرينا meel kastood joogtaan ba Allah idinku xifdiyo, ilaahina ha idinku dhowro, qof walbana wixii uu jecel yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala midigta ka siiyo, qof walbana meeshii bogta Allah u bogsiiyo. waxaynu ku jirnaa weli bishii ramadaan ee khayrka badnayd oo dadku dhammaantood cidda ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraba rajaynaysa ay u tartamayaan inay markaa ka faa'iidaystaan bishan oo saacadna aanay saacad ku darayn. walaalayaal, waxa ugu fiican ee aynu kaga faa'iidaysan karnaa bishan waxa weeye cibaadada weyn ee ilaahay inagu waajibka yeelay. cibaadadaas waa maxay? waa soomka weeye. soomku asal ahaan marka la eegayo kelmadda as-siyaam, marka xagga luqada la eegayo waa mutlaq al-imsaak baa la dhahdaa. al-imsaaku can kulli shay, inaad shay walba iska qabatood iska xidho, sidii ilaahay uu kaga warramay maryama markii lagu yidhi فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. marka صوما waa إمساكا عن الكلام, in ay iska qabato hadalka. marka qofku markuu yidhahdo sumtu can الكalaami, waxa weeye hadalkii baan iska qabtay weeyaan. xagga sharcigana waxa weeyaan inuu qofku iska qabto waxyaabaha ka burinaya soomka min طuluuci الفجر ilى غروب الشمس, isagoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaanaه wa tacaala. haddaba soomku sida ay dadka qaarkood u haystaan ma aha cunto iyo cabitaan oo laga soomo, ma aha. ee soomku waxa weeyaan in xubnahaaguna ay soomaan, qalbigaaguna uu soomo, carabkaagu uu soomo, dhammaanta aada wada soomto oo aad ka qabato naftaada wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa fogeynaya. cunada iyo cabitaanka iyo wixii la halmaali waa usuulu mufatiraat baa la dhahdaa, usuulu almufsidaat, mufsidaat asawm. waxyaabaha usuusha waa weeye cuntada iyo cabitaanka iyo jimaac iyo wixii cunto iyo cabitaan halkooga soo galaya. laakiin waxaa jira hadalkii beenta ahaa, laqwigii malayacniga ahaa, wixii markaa fadhi ku dirirkii, kullu hada waxaa la rabaa in laga soomo ayaa la rabaa, iyo addoonku noqdo addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan ramadaanta dartii isku ilaalinaya. walidalika waa kii nabigu lahaa sala allahu alayh wasalam, man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaaja في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. qofka aan ka tegin ee hadalka beenta iyo ku dhaqankiisa qofka aan ka tegin, ilaahay dan iyo muraad kama laha inuu markaa ka tago cuntada iyo cabitaanka. waayo qofka waxaa la rabaa bishani maadaamay tahay maydaan lagu tababaranayo, waxaa la rabaa qofku inuu xaqiijiyo taqwadii ahayd in wuxuu alla ku farayna aad la timaado fi laqwaali walafcaali, wuxuu kaa reebayna aad ka hadho. ujeedooyinka ugu waaweyn ama xikamka ugu waaweyn ee ramadaan laynagu waajibiyey inaan soomna waxa weeyaan waa alla kacabsiga sidii aynu xaqiijin lahayn. ilahay wuxuu yihi subxaanah, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. marka ujeedaduba waxa weeye likay nuxaqiqa taqwa. taqwaduna waa dee safiinatu najaah, waa doonidii mawjadaha adduunka ee ishirdinaya aynu kaga badbaadi lahayn. waxa weeyaan waa safiinadii iyo doonidii qabriga iyo xayaat albarzakhiya aynu ku badbaadi lahayn. waa midda berritoo leh marka laynoo bandhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku badbaadayno, siduu rabbi yihi subxaanahu wa tacaala, yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda. maalinka aanu dadka mutaqiinta usoo xashrinayno ama aanu usoo xashrinayno allaha raxmaanka ah iyagoo sidoo wafdiya, oo wufuudda waad aragteeno marka ay imanayaan, dadkay u imanayaani way aad iyo aad bay usoo dhoweeyaan, maqaamkii ay mutaysteen baana lagu soo dhoweeyaa. dadka mutaqiintuna ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'ig buu u diyaariyey oo loogu talagalay inay soo dhoweeyaan. bisha keliya ee haddaba aad ka shaqaysan kartaa taqwadaasi ama aad xaqiijin kartaa waa bisha ramadaan weeye. bal waxaad u fiirsataa, iyadoo cid alle cid kula joogta aanay jirin, oo biyihii agtaada qabooba aad arkayso, oo cuntadii aad arkayso, ayaa haddana aanad ku dhowaanayn. hadda cid ku arkaysaa ma laha. bal u fiirso, soddonkaa maalmood markaad sidaasi qalbigaaga aad markaasi ku ababiso oo xubnahaagiina ay la qabsadaan, waxaa la rabaa 11 bilood ee kalena inaad sidaasuna ahata la rabaayo, adigoo sidaasuna aad ka maqasho malaga oo odhanaya yaa ayatuha nafsu lmutma'ina
irjici ilaa rabbika raadiyata mardiya. marka walaalayaal soomka aynu ilaashano, waa inaynu ka ilaalinaa wax kasta oo soomka inaga fasahadinaya qowl iyo ficilba. waa inaad isugu tala gashaa inay bishani kaaga duwanaato bilihii kale aad soo soomi jirtay, oo aad ka dhigato inay tahay bishani tii aad ku safraysayba khalaas. marka qofka hadduu taa ka dhigto didiladiisa uu soo koobo, camalkiisu wanaajinaya. ilaahay kuwii camalkooga wanaajiya haynaga dhigo, bishana kuwa ka faa'iidaysta allah haynaga dhigo. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.